Assalaamu calaykum. Saamaynta dhafarka ama hurdo la'aanta. La yaab ma leh in qaar badan oo naga mid ah ay isku arkaan hurdo la'aan ama ay dhafar ku gaaraan saqda dhexe. Laakiin waa maxay qiimaha dhabta ah ee habeenadeena hurdo la'aanta? Sida iska cad, hurdo la'aanta ama dhafarku waxay saameyn xun u geysataa dareenkaaga iyo hab nololeedka maalintii. Oo aan baarna sababta helitaanka hurdo kugu filan ee lagama maarmaan ugu tahay caafimaadkeena iyo fayoobi qofkeena. Bulshada hurdo la'aanta. Dunida maanta ee xawliga ku socoto, hurdo la'aanta inta badan waxaa loo arkaa wax lagu raaxaysto, taasoo ka dhigaysa hurdadu in aan loo baahnayn. Waxaanu ku faannaa inaan soo jeedno habeenka dhammaadkiisa ilaa waqtiyada kama dambaysta ah ama daawashada xiisaha badan ee bandhigyada aan jecelnahay ilaa saacadaha hore ee subaxda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa in badan oo naga mid ay ku guuldareysteen in ay ogaadaan in hurdadu ay tahay baahida aasaasiga ee noolaha oo muhiim u tahay caafimaadkeena jireed, maskaxeed iyo shucuureed. Qarashka caafimaadka. Saamaynta hurdo la'aanta waxay caan ku tahay dareen in aad dareento daal iyo caajis joogto ah. Hurdo la'aanta joogtada ah ayaa lala xiriiriyaa dhibaatooyin badan oo caafimaad oo ay ku jiraan cayilka, cudurrada wadnaha, sankarowga iyo daciifnimada shaqada difaaca. Marka aynu dhafarno ama hurdo la'aan nagu dhacdo, jirkeenu waxaa ka go'o hababka dib u soo celinta ee dhacaya inta lagu jiro habeenkii, sida hagaajinta unugyada, habeynta hormoonnada iyo xoojinta xasuusta. Waqti kadib tani waxay dhaawici kartaa ama dhaawac weyn u geysan kartaa caafimaadkeena guud, waxayna kordhin kartaa khatar ah in ay ku dhacaan cudurro daba dheeraado. Cawaaqibta garashada. Marka laga soo tago saamaynta ay ku leedahay caafimaadka jirka, hurdo la'aantu waxay sidoo kale wax u dhimaysaa shaqada garashada iyo fayoobaanta shucuureed. Daraasaduhu waxay muujinayaan in hurdadu ay door muhiim ah ka ciyaarto samaynta xasuusta, waxbarashada iyo xalinta dhibaatooyinka iyo go'aan qaadashada. Marka aan hurdo la'aan ahaano, awooddeena aan wax diiradda saarno oo aan hayno ama aan xasuusano macluumaadka ayaa adkaato, taasoo keenta hoos u dhaca wax soo saarka iyo waxqabadka shaqada ama waxbarashada. Intaa waxaa sii dheer, hurdo la'aantu waxay ka sii dari kartaa dareenka xanaaqa, niyad jabka, walaaca, taasoo adkeynaysa in ay la qabsato oo ay si wax ku ool ah u maamusho dareenka. Khatarta ay leedahay hurdo la'aanta. Marka laga soo tago saamaynta ay ku leedahay caafimaadka iyo shaqada garashada, hurdo la'aantu waxay sidoo kale keeni kartaa khatarro halis badan. Wadista gaadiidka adiga oo lulmoonaya, tusaale ahaan, waa sababta ugu weyn ee shilalka baabuurta oo mas'uul ka ah kumanaan dhimasho sanad kasta. Sidoo kale, shakhsiyaadka hurdo la'aanta waxay aad ugu nugul yihiin shilalka goobta shaqada, qaladaadka iyo dhaawacyada, iyaga oo naftooda iyo kuwa kaleba khatar gelinaya. Mudnaanta hurdada. Marka la eego saamaynta weyn ee hurdo la'aantu ku leedahay caafimaadkeena fayoobi qabkeena, waxaa cad in hurdo kugu filan oo aad hesho ay tahay mudnaanta koowaad. Khubaradu waxay ku taliyaan in la hiigsado 7 ilaa 9 saacadood oo hurdo tayo leh habeen kasta si loo taageero caafimaadka iyo shaqada ugu fiican ee nolosha. Dejinta jadwal hurdo oo joogto ah ama abuurista jadwal nasasho leh ee waqtiga sariirta, dhammaantood waxay gacan ka geysan karaan kor u qaadidda caadooyinka ee hurdo wanaagsan. Halkaas ayuu ku egyahay ciwaankeena. Waxaa inoo badan ciwaanka xiga hadduu Alle idmo. Khayr badan.